مرجنا غفضان ثلث الليل كساحة ثقة إلهي استان ثوابك خير كوايب شوفنا وحين رأمون هدينا هديا وجهاد نفتنك وقادنا إلهي جعلنا إبليس كيونا جيدا عذابنا وجهينا إلهي ما حدي نفتان حاكمين وحوالي انت اللقاري وحين راوري هدينا إلى الإسلام يا وخالق عنك خوفنا ختوم ذن الصوب وخير خلق الله خذكم مرين الراعي وحين راوري هدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله آد بندين سلامة هي ملك استو أشوكتين أدونك الدعالديسة وولالكين أحمد بوس وايه آد بندين سلامة هي عاشة وانكو سلامة هي عاشة قبيو ولا شيء مركز توا اسم مسقرينا لايف كي واستوان برنا ان محمد وانكو سلامة هي ولالكي ان عبدي وانكو سلامة هي صاحبكي وحواي دقنا وان سلامة هي أبوه ان سينب وانكو سلامة هي ولا الآدي آد بايدين سلامة هي من مغليسين أدينكو راليا شفعين ما يمغليسين مساعد كان كوي رد راحوغا ان ولا لي الآدي آد بايدين سلامة هي وعليكم السلام ورحمة الله جمال وانكو سلامة هي ولا الله سودوو ان ها ومهدسنتها عبدي عثمان ومهدسنتها ولا الله عاشو وسجين آد بعدكم مهد علينا هيا بسم الله يا الله أديك أود له أمان له كونك أول له ولا ليال واحد يدينكم سلامة هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة الإسلام كان يدينكم سلامة هيا مالك استو أشوكتين أدونك الدعالة سواء أسكري من مقرن طبعا وان سلامينا مدح ضيادة ان عبد الوهاب مروي جميل الجامع آد بنود سلامينا تيم من مقرن مالك استو أشوكتين آد بندين سلامة هيا شقان كسوب بحي وحواي أرنتا عصب ولسعودتين ولا ليال أرنتان هذا نقصو كررتي آد ولسعودتين هرتا مركو هوري انت أنا أدعين هرتا بالعالم السلامة وحوي مارت مركز تبوا وان سلانا عالنك مركان سوق قالوا أسجان سلانته يشمس كان كسب باللعبة عالنك قروح ضبضن وإلهي نقوم من نايستي وإلهي سبحانه وتعالى هالنسيي بان سلانته كسب باللعبة وإذن كسر دوية وحواي مارت كسر دواذا إن ولا ليال وحواي ساكي إن أنا كمركي أهيد أرورتي مركي أهيد أن أرنت الشيخ مقلي أن شيخ مكاوي إلهي ها حفديو شيخ مركاسا مقلي شيخ اللايف كتشراب أن أركي مركان أركي أرنتي وان مليسن واي وح أقلق كوين بي إلى النقطة رنتي سيدا رنتي وح أقلق كوين بي إلى النقطة وان وعي ميلا بدن بان وعي أرنتي وان هو بصدي وحواي ماركتي أن إلهي با أوغا وحواي ماركتي إنا ما situation كيغو سوءها marka Soomaaliyeey walaalahayga Soomaaliyeed oo calankaas aan walaalaha ku nahay wax kale kuma ihin walaalnimo waxa isku kaana keentay waa calankaas quruxda badan oo buluugaaba isku kaana keenay walaalayaalkaas hadii aan cadaalad ku weyn islama joogayno runta la rabaa runta iyo reality-ga in la isku sheegaa la rabaa aniga askari baan ahay laakiin askari baariyaan ahay laakiin reality-ga iyo runta waa in laga wada hadlo
waa inaan runta sheegno waa inaan kacno waa inaana waxyaalaha qaarkood oo nalagu dayahayo oo cadowgu nagu dayahayo inaan yeelin waayo walaalayaal waxyaalaha laga dambeeyo oo waxa weeye maaragtay justice-ka iyo maxkamadaha iyo xoogga iyo cadaaladda lagu tijaabinayo waa inaan yeelin arrintan waa arrin very serious ah waaye waxa la qaadan karo oo bini aadanka human being-ku ay qaadan karaan ma aha waxa weeye waxaasna waxyaalaha la isku rogo oo bini aadanka waxa waaye la isku rogo waaye ilaahay waxa waaye maaragtay oo aad iyo aad uga caroodo waaye qof bini aadana dembigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kale ma saarin sheekh makaawi waa isla ogeyn abaarihii baan ogeyn meelo badana waa la socoteen meelihii waxa waaye maamadii oo lugta waan ilmeeyey maamadii lugta walaalayaal maaragtay arrinteeda waxa waaye soo gudbinahay culummada iyo dadka waxgalka ah oo dadka hormuudka u ah walaalayaal maalin kasta waxa weeye hal dhakhtarkii haddii nalaga dilo sarkaalkii nalaga dilo kii damiirka lahaa nalaga dilo kii waxa weeye sharafta lahaa nalaga dilo war maxaa noo harahaya annaka walaalayaal maxaa noo harahaya waa qaar qarax lagu dilay waa qaar assassination lagu dilay waa qaar waxa weeye maaragtay lagu dilay bahalkii lagu dilay baabuurkii miina lagu xiray culummadayadii kii soo istaago oo wax qabanahaya haddii nalaga dilo kii wax qabanahaya wuxuu ahaa dhaga badan buu ahaa xildhibaankii sharafta badan buu ahaa ninkii kaloo ku xigay saadaa ku xigtay waxa weeye shiikhaan baa maanta loo soo dhigtay oo waxaa la yidhi haye 20 sano ka hor waxa weeye maaragtay ninkii aabaha dilay waxa weeye maaragtay aana qabiil waayada saa u wareegta walaalayaal waxa ilaahay nagu mucjizeeyay oo nagu dhibaateeyay waay aanadan waxaan oo waxa weeye maaragtay mucjizadaayo nagu soo noqotay oo qof kale oo gacan ku dhiigla ah oo tuug oo thug ah wuxuu sameeyay qof kale oo innocent ah in maaragtay uu dhimanahay oo wax shuqul uusan ku lahayn waxaas wax la qaadan karo oo bini aadanku qaadan karo oo bini aadan islaam muslim ah ay qaadan karaan ma aha aad iyo aad baan social media iyo walaalaheena iyo midnimo qaran iyo meel kasta aad maaragtay aad uga dhawaaqdeen oo arrintaas aad waxa waaye maaragtay aad uga halganteen oo meel kasta ka kacdeen waa idinka aad baan ugu farxay walaalayaal damiir ku leeyahay baan baa ku jirto Soomaaliyeed meel kasta oo arrimahaas oo kale ka dhiidhinaysa marka soo gala walaalayaal waa idin salaamahayaa waa idin soo qabanahayaa arrimahan iyo waxa la midka waa inaan ka hadalno cadaalad darrada waa inaan ka hadalno cadaalad darra halkaasna dhigtay cadaalad darrada waxa waaye maaragtay in arrimahaas cadaalad darrada ah waxa waaye maaragtay inaan horta waa inaan la dagaalno this year oo 2017 ah cadaalad darrada waa inaan weerar ku qaadno meel kastoon joogna cadaalad darrada waa inaan weerar ku qaadno fadlan noo sheer galeeya walaalahay waa idin salaamahayaa wasageen marka aad iyo aad baan uga xumahay fadlan waxaan codsanahayaa xeer ilaaliyaha Soomaaliya ni walaalkeen sharafta badan oo xeer ilaaliyaha ah gudoomiyaha Jawaari inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ay baaritaan ku sameeyaan ninka la yiraahdo Cabdirashiid Maxamuud Xasan ninka la yiraahdo oo xildhibaanka ah oo xildhibaanka shiikha ay qaraabada yihiin oo waliba xigaalada yihiin oo xildhibaanka ah ninka magaciisa waa Cabdirashiid Maxamuud Xasan waay ninkaas waa in baaritaan lagu sameeyo arrintan hadduu ku lug leeyahay waa in immediately xilkii laga xiyuubiyo waay war adduunka xagee lagu arkay adduunka as a human being xagee lagu arkay qof baa wax dilay wuu cararay the whole family war aniga markii aan dadka wareystay oo la hadlay waxa la yiri qofba meel buu ku kala faniin ummadii Ilaahay oo Soomaaliyeed bay magan u kala galeen war walaalayaal war xagee u soconnaa war maxaan dhisaynaa war maxaan maaragtay xagee where we going from where we at every single day maalin kasta dhiigana lagu kicinaya gabar baa la faraxumeeyay
war horta meeshaan walaalaya war meeshaan Puntland la yiraahdo oo walaalaheen Puntland maalin war arrintan mucjizada ah oo imtixaanka ah oo ku soo laalaabatay gobolkan war aaway culumadii war aaway islaamada suldaan dadkii waxgaradka ahaa aaway aqooyahankii aaway war nabadan ilaahay idin siiyey wallahi inayna ku jirayn masaakiinta haddii la idinku hor dhibahayo haddii waxa weeye maaragtay shalay bay ahayd gabadhii waxa weeye maaragtay masaakiinta ahayd oo xabadda taranka lagala dhacay waa anigii ka qayliyey waa anigii wixii la okaana kala qabsadeen waa ila socoteen arrintu saa markay u dhacday waa anigii ilaa from the beginning to the end waa anigii la socday wixii la okaa baan ka mutay walaalayaal tii horaa ka baalkii ka horreysay oo wiilasha maaragtay yaryarka ah oo baalkii ciyaalka ay gabadha maaragtay ku xadgudbeen gabadhii ooyeysay oo halkan ku ooyeysay oo soo sheer gareeyay oo aan ilmadeeda la ilmeeyay baa kamid ahayd oo gabar yar oo maskaxda maaragtay looga jiro oo askartu ay week meel ku haysteen oo ayadii oo waxalkii meyd noolo ah oo koma ku jirta dibadda loo soo tuuray tan baa ku xigta war dad sharaf badan oo waxa waaye dhaqanka Soomaaliyeed yaqaana oo waxa weeye cadaalad darrada aan qaadan oo waxa weeye Soomaali oo idil ay la degto oo isla degaan oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad aan lagu xadgudbin dadkooda ay ahaayeen dadka reer Puntland magantooda lala bixin dadka waxa weeye maaragtay minority-ga aan la maaragtay aan lagu xadgudbin bay ahaayeen adduunkii oo dhan intuu isdabagediyey oo dhaqankii isbedelay oo upside down uu yahay baa waxa weeye wax alla wixii meeshii wanaagga lagu ogaa balaaya ka soo baxday iyo halaag waxaan wax la qaadan kara ma aha nimanka maxkamadda shiikha iyo familigiisa maxkamadda saaray oo toogashada ku xukumay whole family balkii shiikhu ka dhashay oo dhan maxkamadda dilka toogashada ku xukumay nimanka maxkamadda waxa waaye walaalayaal maxkamadda saaray oo xeerka gooyay nimanka immediately in la soo qabto inay dawladdu ka hadasho la soo qabto la keeno miiska nimanka lala xisaabtamo waa in lala xisaabtamo nimanka waa waxa sumcadda calanka quruxda badan ku ciyaarahaya waa waxa sumcadda waxa waaye dadkii ku ciyaarahaya waa waxa sumcadda waxa weeye maartay Soomaaliyeed halka dhigay kama yeelayna runta idin sheegayna gacmaha la isku la tagahaya walaalayaal ma yeelayna cadaalad darrana ma qaadanayna wax la qaadan karana ma aha waxaas wax binu aadan u qaadan kara ma aha walaalayaal soo gala waan yara falanqaynaynaa aad iyo aad baa idin salaamahayaa walaalayaal arrintaas waxa weeye maaragtay arrin shiikha maanta markuu hadlayay waa dhageysanay abo waan ku salaamayaa walaalkay seeta abo waxba cunay abo waa qadiyad badan waata abo si fiican baa wax ugu sheekaysaa abo haye maxaa nala wadaagaysaa arrinta waxa weeye shiikh makaawi oo shiikh sharaf badan ah oo samafala ah maxaa nagala wadaagaysaa arrintiisa cadaalad darradan waxa weeye maaragtay meel kasta laga dhawaaqay maxaa nagu darsanaysaa abo horta afka tirtaarta abo brother abo waxyaabo badan baa qaldan asal ahaantiina luqadda iyo dadnimadii baa qaldan dadkii maskaxda kama dhisna abo dadka inaa wacyigelino waayo war hadduu sheegayahay waa bastar waa nin wax doona nin dhul jeceel ku jiro ma jiro horna kula hadlaa dhul jeceelkii la badsho waayo dadnimada in la badsho waayo jeceelkii dhulka inaa keeno anigu waxaan nahna waa dad meerisuunayso wax doonana wadamadaa kusoo qaxaynana waxa waa dhul jeceel bay jeceliin sheekh baa masaajid baa ahaya waxaa ma socdo inaa badino waayo inta leefka ay fiirsanayso war jeceelkii dhulka ilaahayna siiya luqad buu siiya dad buu siiya hadduu u dhashtay Puntland hadduu Hargeysa u dhashtay hadduu Muqdisho u dhashtay in la badsho waayo jeceelkii dadka waxa waa albaabiska waxaa ka horeysa hooyooyinka
hooyooyinka in laga dhaadhiciyo waxaan siyaasaddan barada calan iska soo suran gobolka waxaan hooyooyinka in aan ka dhaadhicino ها marka waxaad leedahay arrintan waa arrin laga soo bilaabo basiga in wacyigelinta laga soo bilaabo oo waxa weeye maaragtay kor la keeno oo la soo wadaad leedahay soo ma aha walaal war kor in la keeno waayo hooyooyinkaa jiifteen waan wada aabooyinkaa jiifteen sababtu aniga hadda tusaale ahaan waxaa kuu sheegaa waxaa u jijeernaa waddan ajnabiya sharci dadnimo aan lahayn waxaan lahayn baan ku jijeernaa qof walbo maankiisa waxaa ka dhaadhacsan wax uu dal uun lahayn iyo dadnimo lahayn sababtu waxaan beesir keliya baa dumay dowladnimadii baa dumtay qarnimadii baa dumtay aad maasha allah benjamin aad iyo aad baan kugu salaamahayaa walaalkay waa ku mahadsan tahay waxa weeye nin soomaaliyeed baa tahay waxa weeye maaragtay aad iyo aad baan kaaga mahad celinahayaa insha allah waa la badan yahay qof kasta 2 daqiiqaan siinahayay waa kula soo hadlahayaa insha allah allaha ku barakeeyo walaalkay benjamin buu ahaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxa waaye walaalayaal sheekh makaawi ilaahay ha xafido wallahi inaan been isku sheegayn sheekh makaawi iyo familigiisa haddii dheg laga qabto waxa weeye soomaali ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto walaalkoodu waaye dadkaas walaalayaal oo waxa waaye maaragtay annakii aan kala qaybinay oo 4 sheetka miyaa la yidhaahdaa aan ku ciil baa ahaya caawa ciilka ahaya you cannot imagine oo aan annakii waxa weeye gacmahayga isku cadaabnay oo ummadayadii ugu sharafta badnayd binu aadanka dadkii ugu sharafta badnaa walaalayaal halkaas gaarsiinay oo waxa weeye maaragtay annakii aan iska kala dhignay dadkeenii dadka ugu wanaagsanaa aan ka dhignay assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله عاشو واسلنا آخرتي ولا وأدي أدبان وقف فرح سنة هاي إنا برنامج كنا جلسوا قريب قشيد وانك سلامة هي أنا حتى والله أدي أنا وفرح سنة هاي بس مع المهام ضمن محل جميل كان عكهر لازم أنا عقبت وين قلبي جيت هايه أود ما أنت اللي يبري لما لها مركا سكوت إن محل يجري أود لسكوفاني أنا جا ما أنت أستي أنا اللي نجابت هاي أنا اللي هاي maxaa isna Soomaali waa kawaanayaan qabyaalada aad please qabyaalada la iska dhaaf Soomaaliya as qabsano wadamada aan u ordeyno dad baa leh dad qabiil ma sheegtaan cadaan la wada dhaama aragtay wili naag cadaan oo dhees qabiilkaas ay wili ma aragtay ama nin cadaan oo dhees qabiilkaas sax walaal waxaan u dhacay aqal manihin aad caashay adaa ku watay walaal waxa waaye ma aragtay waxaad arkaysaa wadan inta la eg oo Asian iyo Indhayar iyo Mexican iyo binu aadanka intuu ka kooban yahay ku wada nool oo waxa weeye hal calan wata oo hal sharci wataba baad arkaysaa walaal wadadku waxay ku fikiraan si wadankooda maanta oo dhiilay qof walba wadankaas raba si loo dhiilay dadka si soo jiitaan ku fikiraan laakiin dadka si loo bari war gawraa la kufsaday caruur yar la kufsaday dad baa la dilay wallahi dadku waa dad la daajiyo waa nimanka wax saan sameeyna arka dad la daajiyo waa dawladda Soomaaliya waxaan ka tuugeynaa dadka qalad sameeyo qalad lagu qaado yani hadii la iska dhaaf waa la isku dayanaya kaas wax lama dhiyaan wax lagu ma dhahayo waa marka si dadkan jareerta la dhahayo nimay Ilaahay ka cabsada ummad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas nafo u yeel sano u yeel afo u yeel adiga zeem ka dhigay nafta nafku weyn oo moo ku siinin asal naftu moo ku yareenin zeem aad ma aan awood la isku faan imaanta ana madax ay أنا أتليه it's not good وحاس إلى على عبسة آدي عاشاي ولا لا لا قوة وارون وحواي هذا ويل كي حراء أو ويجي هراء عن كقيلين إني أو especially من نما قرن وحواي ملك السعود أبهي مكتيس ولا لو معانو أبهي مكتيس السي واحد الغبر يميابل ورأبها نيكد المحل لا يرى أنا مدح صارت ده أبهي أضرب أبوه إنتي بالمكتيس هلا يصير ما جر أو مكا أو ساعدي وشقيله ما طلع دون بس مكتب كان ما كساعدي واحد غبر يمين بن ادم aad walaal waxa weeye maaragtay arintaas aniga sheekha markuu ka hadlay ma dhahayo maanta ma dhahayo halay aaro haloo dilo qof ma dhahayo bin aadam haloo dilo ma dhahayo maanta hal soo istaajitir qof bin aadam ma dhahayo wuxuu dhahayaa magti aabahe
هل إيسي ما هي أنا كساعدتي واحد قف لغا بريميا وهي ما إله لغا عبسو صومالي ولا حق أدمي لغو درع من أوكا قريرا والله أوكا نلقو آي كل صومالي ونان مسلم ساونان aad caashaay waan fahmaya codkaagaan ka dareemaya emotion inaad tahay walaalayaal noo sheer gareeya waxa weeye cadaaladda meel kasta ha gaadho walaala waa saas waaye haddii cadaaladda laga leexdo wallahi bilahi tala wiilkan haddaana si xorriyadiis la sii waayo wallahi bilahi tala Soomaali urgurida ka dhacay wallahi dhulkan la wadumay muslimta unahan waa la yaabi doonaa Soomaali wax ka dhici doona aad iyo aad dhulkan la rabno ma rabaan dadkan ma ilaahay ka yaa markii jagal isku faan ana maanta laan dheeraadi laan gaabaa tahay minority loo ma ooyaata af Soomaaliga suurtu waxa dhulka la galno way qof baa loo dhaaya loo ma ooyaata wadisda qof bini'aadana loo ooyinaa walaala macaanto waa waxa horta halkaana dhigay waaye mana yeelayna mana qaadanayna runta idin sheegaya si kastoo naloo tijaabiyo si kastoo justice-ka loo tijaabiyo oo naloo tijaabiyo inaan yeelayn walaalayaal cadowgu meel kasta uu naga tijaabinaya arrintan I believe wax qof bini'aadan ah oo normal ah bini'aadan maanta madaxa soo taag maanta qof madaxa soo taag oo wadankaaga wax ka dhig mid xabsi lagu iloobo mid la dilo mid la toogto mid la shirqooro mid qarax la dhigo warwad yaa marka maangaabyaashi oo qabyaalada maskaxda ka bixin way waa ka magaalada ku nool yahay adduunka way sii badanayaan dadkii wadaniga ayna way la'anayaan aqar zamaanka lagu jiro dadka wadanka u doodaa dhulkiisa u doodaa maxalliga qabiilka nacay waa la dilayaan kii qabiilka rabna waa ka waa nool yahay magaalka ordaya oo si qasaya aad iyo aad caashaay meel fiican baa dhigtay aad iyo aad Allah ku barakeeyo walaal waan ku salaamayaa walaalahayga waa idin sharafta badan aad baan idin salaamayaa walaalkiin Axmed Boos waaye markasta caalanka quruxda badan baa idin ku soo dhawaada cadaalad baan u baahanahay walaalayaal meel kastoo aan joogno arrintan aan ka dhiidhino walaalahay waxa waaye maaragtay social media iyo meel kasta way ka kaceen dawladda meel waa inay ka hadlaan arrintan xeer ilaaliyuhu waa inuu baaro ninka xildhibaanka ah oo cabdirashiid maxamuud xasan la yiraahdo ninkaas waa inuu xeer ilaaliyaha baaro waa inuu maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka uu ninkaas uu maaragtay ninka in faraha lala gala weeye xasaanada laga qaado arrintan hadday isku xoog sheegasho iyo waxa weeye aniga maaragtay kaatun weyn iyo anaa kaa lacag badan iyo anaa kaasaana kulleyba arrintan qof ilaahay ka baqahayo macnaha daacad oo maskaxdiisu ay normal tahay oo bini'aadan horta wax qof ku fakari kara ma aha waxaan waxa keenay walaalayaal dad caadi ah oo normal ah ma aha waxa weeye waa hidden stories waaye waa sheeko hoose waa lacago hoose oo la kala qaatay waa arrin waxa weeye maaragtay waa reehebel ba ahaa cidna maqli maysa soo xareeya waxaa Soomaali weyn way ka gudubtay waan ka gudubnay waxaas walaalayaal been in ma sheegahayo waxa waaye haddii ay cadaalad darro qof lagu sameeyo annagoo dhan bayna saamaynaysaa intaasoo sanaan dhib ku soo jirnay intaasna waan kusii jiri doonaa haddii cadaaladda haddii loo hiilin waayo ilaahay ma jeclo walaalayaal meel ay cadaalad ka jirin wadamadaas reer galbeedka waa aragteen fasaqa iyo dhibaatada ka socota iyo waxa maaragtay ka socda diinkuma dhaqmaan waxa weeye maaragtay ilaahayna intaas waxa weeye maaragtay wuu barakeeyaa reasonka keliya ilaahay u barakeynahayana waxa weeye aliisi cadaalad oo ay maaragtay aan qofkan bini'aadanka ah hadduu dembi gala walaalkii loo dilay hadduu waxa weeye maaragtay qofkan uu xaleeyo asagii ay ku kooban tahay keliya ku dhaqmaan bini'aadan baan nahay dad islaama baan nahay dad sharaf badan baan nahay waa inaan arrintaa ka kacnaa meel kastana ka hadalnaa arrintan saakay markay ugu socotay olli baan maqlay qofkii show malaha qofkii very oo macnaha social media qofkii ugu horreeyay sheekho live markaa soo galay baan la kulmay wax amazing oo bini'aadanka maskaxdiisa geli karin bay la noqotay runta haddaa idin sheego marka walaalayaal arrintaas waa arrin aad iyo aad waxa weeye maaragtay aan insha Allah haddii meel kastoo aan joogno aan uga dhiidhinayno fadlan noo sheer gareeya shiikha aan taageerno shiikhaas waxa weeye sheekh Makaawi qof kasta yaqaana ilaahay ha xafido in alla intii waxa weeye ka dhiidhisay in alla intii u hiilisayna ilaahay ha u hiiliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalkay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي في الله أذيك أي ولا لها دمانتين الله يحفتيه لا يفوز عادي وشكر تشيلها لكن حوجا سيبا وكلا دات سنة هاي
laakiin waa idinla hadli karaa walaal ilaahayna waxa idinka bariyay dhammaantiin intiina ii damqatay walaalaha inta ma garanaysaa ee ii oyday inta dulmiga la igu sameeyey ka dhiidhiday inta waxa weeye soomaalinimada iyo muwaadinnimada iyo ma garanaysaa waxa weeye aaminsan waxa weeye in aan maanta waxa weeye xoog la isugu faani karin maanta Soomaalidu ay ilaahay social media iyo meel codkooda iyo ku dhiibtaan ma garanaysaa ra'yigooda ilaahay siiyey inaynu haddana reer Facebook isla nahay oo dadkeena social media qayb waa wariyaal qayb waa samafalayaal qayb waa muxuu ahay dadka u xaraabeeya qayb waa fan qayb qolaba waxa weeye waxay doontaa haysee qofkeeni social media waxa weeye ina kula jiro oo caan oo la wada yaqaan haddii la dulmo ama la dhibo wuxuu rabo ha ka shaqeeyo wuxuu rabo ha sheegi jire inaynu dulmiga markaa oodno waa sharci inaguna isku raacsannahay aniguna maanta waxaygu dulmiba waa dhaaftay anigu waxaygu dulmi waa dhaaftay waxa weeye dil baa lagu xukumay kelmadda dil baa lagu xukumay waa lagu yani qof yani caawa kaliya xukunko lagu fuliyo waa geeyo ku dhufta xabadda uun baa ay dhiman sheekh makaawi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sheekhaygii baa laynka ku jira waa maqlaysiin ilaahay subxaana watacaala ha noo xafido asaga iyo faamiligiisii keligiis ma aha soomaali weyney dhegaysta arrintaas shiikha keligiis ma aha arrintaana waxa weeye ninkaas aan idiin sheegahayay oo cabdirashiid maxamuud xasan baa la yidhaahdaa sheikh soo ma aha ninka xildhibaanka ah waa ku wada walaal waxa weeye may maqlaysaa walaal ha sheikh waan ku maqlahayaa sheikh makaawi waan ku maqlahayaa ha walaal allah ikiin daayo anigu maanta runta idin sheegayaa waxa weeye garabaan ummadda Soomaaliyeed ahayn malihi qabiil ii doodayo maanta oranaya yaa wiilkaygii taabtay oo xoog loo aan ma garanaysaa isku haleynaya malihi sax nin baa ma garanaysaa waa ila reer baa la leeyahay laakiin ila reer ma waa cadow waxa weeye maanta ninka aniga iyo walaalahay bal rabo inuu gumaado oo waxa weeye isagoo shalay adeerkii aabihay ay bahay dilay oo aanu sii daynay oo aanu isnina walaalihiin idin soo qaxay oo iyagu asalkooda reer Burcay ahaayeen magaalada Burcay deganaayeen qaxii Soomaaliland barigii laga qaxi jiro dagaalku ka dhacay bay anaga noo yimaadeen dib u dejin baan ku sameynay aabahay iyo walaalahay iyo dadkaygii baa meesha markaas waxa weeye deganaa oo deegaankaasna baawar ku lahaa aabahay oo agaasimo ku xigeenka boosta isgaarsiinta gobolka bari ahaa oo waagaas mikrofoonadii iyo wixii lagu wada hadli jiray tiri iyo maaqan tara wax la oran jiray wixii waaga taar baa la oran jiray taarkii qofka markuu ku soo waco xaafadda qof loo diri jiray oo kaala taarka lagu fadhiyaa ma garanaysaa la iska wada maqli jiray ha kaasoo aabbu ku shaqaysan jiray kadibna boosta isgaarsiinta oo boosaaso baa agaasimo ku xigeen laga dhigay markii dambana qaybta waaxda iyo dhul bixintaba isaga iyo Cabdiraxmaan Kulan oo adeerkii ahaa dawladda hoose ee gobolka bari u magacawday iyagaaba dhulka bixin jiray boosaaso waxa dhul baanta dabaqay laga dhisanayo oo la degan yahay aabahay iyo adeerkii baa bixin jiray marka waxa dhacday in muxuu ahaay aabahay uu dhul siiyey oo dib u dejin u sameeyay ilaahay wuxuu qadaray iyagii qaxa ahaa shalay markii noo yimaadeen aabahay soo dhaweynay iyagii aabahay gacantooda ku dilaan kuwii soo dhaweeyay habad dileene waxa weeye walaalahay ahaayeen waa dad isku reera annagii baa ma garanaysaa 10 oo dadka iska dulmana annagu marka waxa weeye hadii ninkii uu dilay uu carray annaga soo qabsanay hatta jifida kale walaalahay ma aysan soo qaban awowgay baana gacanta loo soo galiyay sax adeeraday waa socdeen qabrigii bay qodeen kafantii bay soo gadeen waxbay diyaariyeen awowgay baa diiday oo wuxuu yiri marnaba dhici mayso dadka inaga inoo yimi qariibka ay walaalaheena meesha joogayna quwad iyo u sheegano deegaankeenni bay joogaan ma garanaysaa dib bay noo gasana laaya yeeli meeyne ninka wax dileen hal la daayo nimanka kale lama taaban karo ma sha Allah awow hadduu saa yeelay adeeraday qayb baa soo baxsaday wixii xabsi uu ku guray ninkiina sidii uu ku soo masaafireeyo hadeerna Nairobi buu joogayo ku guursaday ganacsi iyo carruur ku dhaldhalaya ma garat ninkii aaba dilay miya waxa Nairobi jooga waako waxa jirta marka walaal gacaliye qaladkii shalay ninkaas aabahay ku dilay mid lamid ah maanta walaalkay geystay oo isna nin kale oo maskiino laakiin reerkii iyaga abu maanta wax u geystay oo waxa weeye oo maxaa ilaahay ku sababay ma garat sax marka xaq ma waxaan u lahayn inay sidii ma garanaysaa maalintii wiilka nala soo qabtaan oo nala raadiyaan oo hadii la helana la toogto ama hadilan ama ha toogtaan nala raadiyaan hadii muxuu ahaay la waayeyna ayna soo hor fadhiistaan oo talnimo nagula dhaqmaan mise xaq waxaan u leenahay inay maanta hada iyagu ay waxa weeye adduunyadu waa tilkan ayaam weeye
maanta hadda iyagii ay heleen xildhibaan federaal ah oo teetal yeesheen oo wiilkii xildhibaanka ah xataa waxa weeye walaalihiis ciidan ka wada dhigayo oo ma garanaysaa ilaahay maanta waxa weeye u nimceeyey maanta haddii khalad xaggayagii ka yimi ma in sidii shalay uu walaalka yeelaa mise waa inuu quwad iyo teetal iyo gumaad iyo shanba idinka dilayaa iyo xukun dowladeed iyo lacag nimankii maxkamadda uu ku hurgufo oo 4 wiil oo maxkamadda jooga oo awalba aad ogtahay haddii warqad yar aad uga baahatid $100 haddaadan bixin aadan ka helayn iyagoo 5,000 loo sheegay ka war shantaydiiba dil bay nagu xukumeen ma garata shantiiba dil bay ku xukumayaan sheikh waa runta waxa weeye maaragtay sidii aad shalay yeesheen aad maaragtay inay maaragtay sidaas shalay ay yeeleen inay yeelaan bay ahayd arrintaana waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waa ay maqlaysiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa ay maqlaysiin inta Soomaalida oo damiir kale waa maqlaysiin sheikh ayagii sharafta badnaa oo waxa waaye maaragtay samafalaha ahaa aan ugu jira line-ka waa maqlaysiin codkiisa waa maqlaysiin waxa waaye meel kasta ka kaca dil iyo dal iyo dibadba ka kaca dadkii ugu horreeyay oo saaka sheikha live-ka markuu soo galay shaqaan ku jiray runta idin sheegaya shaqaan ku jiray waan shaqayn waay waxa waaye arrintaas weeye waxaan ka socon weynay arrintaas weeye waxaan ka dhaqaaqi weynay cadaalad darrada weeye walaalayaal waxaan ka socon weynay aan ka dhaqaaqi weynay qof kale dhib uu geystay oo weliba sheikha uu yiri maaragtay annakii oo raadinayna wiilkii baan raadinaynay buu yiri 2 bilood baan raadinaynay meel kastaan ka raadinay ayakiiba waxaan nidhi nala raadiye warkaalay aan isla raadinay haddaad disheen iyo hadduu nool yahayba aan wada raadino waxa weeye ayadii oo arrintii ay saa tahay oo uu gacan ku dhiiglihii fakaday oo waxa weeye qof dilay joogi mahayo waa la ogyahay adduunka meeluu joogahaya male baa haddana shiikhii guryahoodii loo soo daatay way kala firdhadeen midba meel buu joogaa maantay sheikh noo wada adoo raalli ahow noo sheer gareeya sheikha ha gaaro meel kasta ha gaaro annaka waxa weeye maaragtay u joogno waxa weeye sheikha ayagii weeye walaal waxa weeye marka ilaahay ha xifdiyo dad badan baan arkayaa commentiga ay igu ducaynaya hooyooyin badan oo ila ooynaya baan arkaa dad badan oo maanta cadaalad darrada igu dhacday ka dhiidhinaya baan arkaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay tan aniga igu dhacday inay sidii aan masaakiinta u caawin jiray ay tanna ay gurmad u tahay dad badan oo xabsiga haddeer ku jiro iyagana sidaas kale dulmi lagu khaarijin lahaa in maxkamadda hadda kadib laga fiirsan doono xukunada dilka ay fuliso in ma garanaysaa nimankaas meesha jooga iyo tiimkaas anuu dulmiga dulmay aniga iyaga ilaahay was ogyahay صح waxaan aaminsanahay xataa dad hore aysaa loo dilayn waxa maanta ay cadaateen dulmi lagu dilay oo arrinkooda si fiican loo magaranaysaa falanqayn waxaan ka baqayaa haddeer dad badan oo walaalo oo masaakiina haddii maanta aan arrinkaas maxkamadaas iyo ragga jooga aan tan lagula xisaabtamin in iyaguna ay dhiman doonaan oo qalin lagu dili doono صح waxa weeye anigu aan dhinto anigu nin ragaan ahay ilaahay subxaanahu watacaala baa dil ii qoray haddii gacan iga xaq daran iyo dishana alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay meeshuu ii qoray waan ogahay oo waan tegayaa nin cilmigeeda baan ahay haddii dulmi muxuu ahay aan maanta ku dhintona waxa weeye waa ogahay ajarka ilaahay hortiisa aan ka helayo anoon waxba dilin waxba geysan ilaahay subxaanahu watacaala markhaati ka yahay maalintii wiilkaas uu dhibta u geysanayay anuu qardhaan joogay dhibtuna boosaasay ka dhacday 350 kilomitir baa u dhaxaysay subaxdii markii lay sheegay halhaleel baan muxuu ahay funaanadeeda iyo ku gashaday iyo macawisteydii iyo gaarigii waxa weeye aan ku fuulay markii laygu yiri muxuu ahay war ka carar meesha walaalkaa baa wax dilayo waxa weeye xildhibaankii baa soo hadlay walaalkiisa ayo ciidamadii oo dhan baa kugu soo socdeen ma garat anoo war ma ogta qof micnaha yani muslim ah qofkii ka taliya dilkiisa ama yiraahdo la soo dilo ama dhiig bani aadna ka shaqeeyana ilaahay baanba u heelinba maanta haddaad ii helisaan aad qaylisaan aad orodaan oo social media kicisaan anigu mujrim ahay ilaahay baan idinka yeelayna ilaahay baa iga helinaya ilaahay waxaan ka bariyaa haddii aan arrinkaa wax ka ogaa ama aan raalli ka ahaa ilaahay waxaan ka bariyay waxa wadaan iyo hiilkaa wadaan ilaahay aqbalina ilaahay waxa weeye uu dulmiga aan galay ilaahay igu soo saaro oo la itoogto oo xoonka layga rabo dembigaas layga reebo oo aakhiriyo adduun aakhira badan aan آخرته إلهي سبحانه وتعالى أن وحوي شيخ مكاوي أنا وحبك أوجين إن ظلمي يشات الدولة يتأتل يحسانات العقل يأذيك سدو ما دعيسو سوق هدو حسانات فضل على كهلي والدولة كهلي أنا حسانات أنت الصومالي فيسبوك استعمال شيء يقول فلان يجا حسانات دي ان الى 11 مليون يكبا ضمبا arrinta ada ka kacday dal iyo dibad meel kasta waa laga kacay meel kastana waa laga hadlayaa
cadaalad darradaasna sheekh makaawi waxa weeye maaragtay ilaahay markuu cadaalad keenahayo arrin buu furaa albaab buu furaa albaabkan waxay noqonaysaa albaabkii cadaaladda furahayay noqonaysaa nimankaa maxkamadda waa lala xisaabtamahayaa nimankaa sameeyeyna immediately nimankaas shaqada waxa weeye in nimankaas waxa weeye maaragtay madaxda ugu sarreysa oo gobolka Puntland inay la fariistaan la xisaabtamaan waajibkoodana mariyaan 5 qof oo isku reer ah waa 5 qof oo isku family ah 5 qof oo isku family ah in dil toogashaa lagu xukumo qof ka joogay la arag sheekh qof joogayna ma jirin baa la yiri lawyerna in ma joog qareena in ma joogin adinkina meesha ma joogin baa la yiri waa xukum qaa'ib baan lagu dhacay waxaan maqla jiray asalaatu cala almayit baan maqli jiray oo qaa'ib lagu tukado qof walaalo muslima markuu dhinto meelaha ku dhintay baan maqli jiray masaajid jamaaco looga tukado salaatul mayit oo salaatul qaa'ib loo tukado annaga xukum annagoo qaa'ib aan nagu dhacay baadigoob baanba ku jira oo gacan ku dhiglii baanba ku maqana oo arrinka odayaal baan u diray oo gogol baan dhigay oo waxa weeye Puntland wixii isma joogay beelaha gabooye iyo ummadaas kale oo degan kulligood si u dhan yihiin shir baan u qabtay bogcadahaygi baan u gaday ilaahay waa og yahay jeebkaygii oo dhan baan ku martay waxaan raadinayay nabad tuulada leeyahay yaka oo dadkaas ma dhibaanka ay degaan baan gogol dhigay bil dhan baa lay cunay oo waxa weeye wax allaali wixii kharash laga qaaday oo gogol iyo barkin iyo xasiig iyo wax kasta aan dhigay mar kaliya xildhibaankii diideen oo xamar ka yimaado gogoshii soo fadhiisto soddon beri markii loo faadi ahaa oo odayaashii iyo cid kastaba waxa weeye uu diiday inuu aqbalo buu markii dambe waxa weeye aabihiisii walaalihiis wuxuu yiri boosaas haddaad ugu tegaysaan shirka halkaas ma rabe boosaas haddaad noogu imaanaysaan noogu imaada odayaashii oo dhan baa tegay oo boosaasoo kulayla ilaahay baan ku dhaartay kulaylka xagaagaas ka baxaya baa odayaashii oo 30 oday wada waayeela baan intaan gawaari ku guray baan kulaylkii dhexgey oo qaybtood baan ku xaraaro jirkii googay saddexdii bari shirka ay ka wadeen boosaas aakhirna waxay ku jawaabeen waxa weeye anagu waa aarsanaynaa wax aanu nabad qaadanayna iyo wax aanu sulx galeynaa ma leh ugaas Jamaal Cabdi Dacaalo oo ugaaska beelaha ma dhibaan baa wuxuu ku yiri warnimayow weelasha eerkada agoonta shalay disheen oo midba gooni iyo ma garanaysaa silic iyo agoonnimo ku soo koray oo ilaahay og yeesay maanta ku soo maartay noloshooda ay ku soo koreen dhibkay soo mareen oo idinku u geysteen oo aabbahood ka disheen isagoo agaasimo ku xigeen oo ladan oo ilmihiisa korsanayad agoomiseen maanta haddii khalad idinkaga yimi say shalay iyagu yeela qaladkana idinka keenayo waxa weeye magti aabahood bay 20 sano idinka sugayeen aad u diideen maanta markaad khayr hesheen aad xildhibaan hesheen ilaahay idin nimceeyay haday idin dheen wax iyagana siiya hatta wax inaad siisaan ba ahaydeen laakiin Hussein kaala dilay oo walaalkay dilay baa wuxuu yiri ma bixinayna caawa iga hooseeya anigu been ka sheegimayo waxa weeye Facebook isku dhaafsadeen wuxuu yiri adeer booska aabaha maray baa lagu marsiinaya maxaase qaadi ka dhaanin waxa weeye waa hanjabaad waa asagoo aabihiis maqan yahay baa loo sii hanjabay labada wiil baa isdhaafsaday message-ka Facebook ay ku wada hadleen waan hayaa ka Facebook-giisi waan hayaa iyo kaas Allah u naxariistay message-yadii waxa weeye marka ilmo u hanjabay oo waxa weeye aabaha man shalay dilin adna waa kugu dareynaa oo caradii ay qaaday baa waxa ka nasameeyay ugaasku wuxuu yiri hadaba xildhibaan diintu laba waa ogosha qisaasna way ogoshahay qofkii qof dilay ilaahay in la dilo buu jideeyay iyadaana xaq ah oo qisaastu waa xayaa oo waa nolol inagoo dhan baa ku badbaadayna haddii kii wax dilaba la dilo inta kale ku badbaadaysa haddii kalena ilaahay wuxuu baneeyay diyo in la qaato labadu waa xaq waa sharci diiniyan markii loo hadlo shalay haddii nimankan sulx qaateen oo Sheekh Makaawi iyo familkiisa ay sulx qaateen oo aabahood ka samreen oo idin wax maga ka siin maanta haddii uu dhibti dhacday haddaanu xukunno in la dilo muxuu ahaayay xataa gacan ku dhiglo markaa maqan baa ugaas ku difaacay wuxuu lahaa haddii xataa idinkeena hadda dishaan dee ma soconayso xeerka Soomaalida u yaala oo waxaysan ku soconayn dee shalay baa isaga aabihii la dilay wiil aabihii la dilayna isagana kuma dari karno haddii la waayo hadda fakado saa ku fakadayna dee laba waayo waa u jeedaan laba soo waaye talow 2 magood qaato 3 magood qaato waxa hartaan qaato mashruucayna ka soo xira kii oo dhan waa ogolaadeen مع حلبان كأديس مع هو يديس وأقول واحد ديده استجا بعد ديده حلبان بعد ديده يقدر أنا عبد الرشيد محمود حسن بعد عبد الرشيد محمود حسن استجا ديده يقدر أنا ورالك وآري كرا ما كنا قادن ما يدعينا قادن ما يسكيك كلا تجا ماشي سيدي بعضياشي راح كلها لك حاجة جيو
rafaadka iyo intii kharash bildan baxaysay waxa weeye ku khasaartay 30 kun oo igaga baxday baaba magta iga bixisay ninka ma garad waxaan hayeen waa idaafsiyay odayaashina waa soo cayriyay kadibna anigii markay saas dhacday hanjabaad iyo wuxuu igu bilaabay inuu walaalihiis oo dhan uu qoro muxuu ahaayay booliska qoro oo askarta u wada xiro sharciyeeyo sawirada waa ku soo diraya iyagoo biika imisa u sita baan ku qamuumyoonaya baan ku soo diraya walaalihii ay WhatsApp-ka ii soo dhigeen oo askarta ii soo direen hanjabaad يعني dad dhiig doonta ah oo aana doonata ah oo lagu sharciyeeyay ka war askar lagaaga dhigay askar oo adigii nabadii dadkii sugaysa oo askar laga dhigay oo waxa weeye dana gooniyana laga leeyahay dana gooniya ma waa dhiig doonata waa niman walaalkood dhintay wiilka dhintay bay la dhasheen 10kii walaalihiaba wuxuu ka dhigay ciidan wuxuuna u qoray Puntland inay yihiin staffkiisii ma oran waa walaalahay wuxuu waa staffkayga amnigayga sugay ilaa xildhibaanku staff buu leeyahay moogta waa sax waxa weeye marka hadday saas dhacday hanjabaad baa laygu bilaabay guriga hooyaday baa la tagay intii gawaari la ka haystay iyagoo tuuta sita hooyaday baa gurigeedii waxa weeye laga barakiciyay maxkamaday warqad ka soo qaateen oo maxkamadda laftigeeda dilka ugu xukuntay baa xukunta in hooyaday iyo ciyaalkaygana guriga laga saaro maxaa guriga iska galay hawl qabiil u taar hooyaday baa guriga laga saaro oo ciyaalkii baa guriga laga saaray sawirada waa ku soo diraya guriga darbiga hooyaday waxa lagu qoray feeri xanibaad maxkamadeed baa lagu qoray ha laga baxo maca dadkii ku jiray oo hooyaday laba qol ay ka kareysay guriga hooyaday baa anigu mali hooyaday reerkayga maahay waa reer kale oo gabayo ama dhibaan la yiraahdo iyadoo bahday reeraha iyo ibraha kama dhalan gurigeeda iyada aabaha iyo hooyaday 30 sano ka hor bay isugu dambeysay oo waxa weeye min zaman iyadoo wiilkeedii ay baxsanayaan ay dil ku xukunteen bay iyadii haddana harkeeda ka saareen ay ka soo carartay boosaas oo dhan ay qarratimi magaalada qarra ay timi ma garad sax waxaas oo dhan saxiixaasna waxay ka helayaan waa maxkamadda qaladka maxkamaddu iga gasho kale waxa weeye akoonnadaydii oo dhan bay maxkamaddu amar ku bixisay in la xiro foundationka tii masaakiinta iyo agoonta iyo danyarta iyo wax loogu soo shubayay no baa la yidhi waxba looguma soo shubi karo ma foundationkaagii dhan oo masaakiinta aad ugu kaalmayn jirtay oo ummadda aan halkan aan ka arkaynay oon la ooyeynay oo dal iyo dibadba waxa weeye maaragtay aad waxaad qabanaysay ilaahay subxaana watacaala ha kaa amaalmariyo sheikh ilaahay ha kaa amaalmariyo accountiyadii bay maxkamaddii amar ku bixisay in la xidho ilaahay baan ku dhaartay waa la weydiin karaa maamulaha faahiye ee jooga amal banki boosaaso indaabjir waa la weydiin karaa meel kasta warqad baa la dhigay inaan lacag xataa laysoo xawili karin fiiri wuxuu igu sameeyey oo kale eyga ilaahay baa diiday xayawaanka inaad qol ku xidhid xataa iska daa bashare oo aad gaajo ku dishidood cuno qabatay sida ilaa uu ka dhinto wuxuu igu sameeyey ninka xildhibaanka ah akoonnadaydii oo dhan buu xiray ha xiree wuxuu sameeyey dalka lacag loogama soo diri karo xawaaradaha kama qaadan hadeer boosaaso uqsum billahi baan lacag uga qaadan karaa caaw hadda aad $100 xataa ay soo dirtido ilaahay dartiisa inaanan ka qaadan karin warqad baa iga taala oo magacaaga ah maba qaadan karo aan waa wax la wada og yahay Puntland laga wada og yahay wali warqada 3 mas'uuliyiin saxiixay halka in hadda ka sheego magacyadooda ma rabe waxaan ku yiri yani xabsi gali cadaadi muxuu ahay risqa ka xir dilo xukumo barnaamij abuuta dictatori xataa baan ku yiri yuhuudu sida dadka u lama dhaqanto oo ninkaas ila dhaqmo sheekh makaawi waxa weeye arrintan sal iyo baar waan ula soconnaa walaalahaaga aniga aad iyo aad waxaan u farxay markaad tiri walaalahayga facebooka baan ku qabiil ahay walaalahayga waxa weeye maaragtay damiir kale baa walaalahayga ah waad aragtay sida lagugu kacay dal iyo dibadba waan ka kacnay waa fadlan waxaa idinka baryahayaa walaalahayga baalkii reer Puntland oo sharafta badan kaca dhalinyaroy kaca mudaharaada meel kasta ka mudaharaada nimankaas waxa weeye maaragtay shiikhaas allaha barakeeyo ilaahay subxaana watacaala ha noo xafido waxa waaye maaragtay meel kasta aan ka kacno been in ma sheegayo wallahi shiikhaas haddii dheg laga qabta dheg hadduu dhereg xataa u dhinto wallahi iyo billahi waa la iskula xisaabtamaya dhereg hadduu u dhinto wax kale iska daay runtaan isku sheegaynaa walaalkay allah ku xifdiyo Soomaalidu walaal waa ogtahay waa beelbeel xildhibaanada federaalka ku jira nin kastaba reer baa meesha geystay sax ma garad inta Soomaali daawanaysa kulli nin kastaba xildhibaankooda waa yaqaan intaas ay ugu fulaan inta xildhibaan meesha joogtay in la yiraahdo warniyo ninka faraha ka qaad oo nin kastaba xildhibaankiisa wuxuu yiraahdo warniyo ninkaas xildhibaanka beesha Yibro meesha jooga waxa weeye la hadla oo miskiinka Sheekh Makaawi familkiisa reerkiisa shalay aabahood dilo agoonnimada iyo shilca ilaahay baan ku dhaartay ninka la yiraahdo ii sheeg magacaaga buu gacali
gudoomiyaha baarlamaanka adiga magacaaga ii sheeg ha aniga axmed boos baa la yidhaahdaa axmed askarigii axmed boosow midnimo qaran baan ku aqaanaaye magacyada waa iska daayo midnimo qaran anna igu soo daraan admin ka noqdo insha allah qarankayga difaacde maasha allah haye waxaan ku yidhi midnimo qaranow wuxuu sameeyey muxuu aha ii sheeg walaal waxaan ku yidhi warniyow isagaan wacay xildhibaanka waxaan ku wareedha niyow in adeero adna walaalkaa baa dhintay anna aabbahay baa dhintay maanta ogta dulmiga soomaaliya ina ku hayso waa layna gadoodiyey gabdhaheenni lama guursado innaga laynama guuriyo dadkii oo dhan baa waxa weeye ina cunsuriyadeeyey labadii sacaydaa oo istagaashaa ilaa midka kale yidhahda yibiryahow yibir ku dhalay waxa weeye ma caro burburo si kasta u feero u dilo ula dhaco ilaa uu yibiryo yibir ku dhalay yidhahdo caradu kama go'do waxaasoo dhan waxaasoo dhibaataa innagoo qabna oo tobana maanta adiga inaysa sii baabilo teetal iyo qood isu sheegan waa laga fiican yahay wardada ka masaakiinta ah haddeer mashruuc baan u wadaa carruurta yararka beesha yibraha inaan dugsi hoose dhexe sare geeyo waxbaro ilaa 500 oo ciyaalka reerkaasa ilaa 12 sano dugsiga sare aan ka saaro kadibna 4 sano jaamacada u diro war 16 sano kadib barnaamij waxaan wataa inaan 500 wiil oo beesha yibraha jaamiciyiin ka dhigo si ay isaga daayaan samaanyahan iyo baktigan iyo baladan ummaddu ku caayisay mutacallimiin iyo professor u noqdaan caalamka ula jaan qaadaan mashruucaasi haddeer iskoolkii iyo dhismihii iyo barnaamijkiisii waan waday walaalo qadar iyo meel kasta joogaa iga ballan qaaday inay dhaqaalaha bixiyaan war fiiri aniga dhibta ay geysanaysid beeshaadoo dhan dhibta u geysanaysid mashaariicdaad ka baajinaysid fiiri oo ummadda soomaaliyeed ay ku caawinayso si ay dadkaasi uga baxaan jahliga si dadkaas loo caawiyo si dadkaas ma garanaysaa ee waxa weeye ay mutacallimiin u noqdaan si aan mar dambe loo hakran soomaaliya oo dhan baa diyaar u ah inay kulleej ila dhisaan dada kale maadaama waxa weeye ay dadka ka hareen inay kor iila soo qaadaan oy iyaguna waxa weeye ugu hiiliyaan inay wax baraan oo ilaahay dartii ku caawiyaan oo jaaliyadahoo dhan baa barnaamijka iga aqbalay inay igala shaqeeyaan oo dadkan aynu garab istaagno aniga adigii marka iftiinka u ahaynay adnaad xildhibaankeed adna shiikha ummaddu ay taqaana aan ahaa haddii labadeenni aynu is ugaarsanno beeshii oo dhan soo indhabeeli mayso aad iyo aad ani aabahay dhimay walaalow adna walaalkaa dhimay ilaah baan kugu dhaashay sulwixii shalay markaad qariibka ahaydeen aan anagu idiin samaynay maanta teetelka aad u leedahay shalay waxa weeye annagu kuuma adeegsana ha ii adeegsane mag iyo 2 iyo 3 ba haddaad tiraahdi reer facebook baa anagu ila tolo ila qabiilo iyagaa hal doolar isugu kaa soo darayo magtaada ku siinaya ma garat qabiil kale ilaa ma kaaga dooni maaye aynu heshiino si kasta waa u bariyay inta qof bariyaan bariyay wakaasaka aniga dilka ugu soo xukumay sheekh makaawiyow ilaahay ha ku barakeeyo sheekhayagii baa tahay allah ha ku barakeeyo ma u malaynaysaa arrintan arrin siyaasadaysan inay tahay oo gacmo shisheeye iyo gacmo kale ay ku jiraan ma horta walaal waxa xaqiiq ah baan ku sheegayaa Soomaaliya meesha la yiraahdo saa la socotid hay'ado baa jira caalamka ka yimaado oo inaga enjoyna ku soo qaato oo malaayiin dollar intay Soomaaliya keenaan kadibna 2 milyan intay bixiyaan oo sawir iyo muuqaal ka qaataan waxooda kalena xagga akoonadooda ku xawisha marka sidaa awgeed hay'ado fara badan baa jira aan magacaabino waaweyn taqaaniin sax oo magaca Soomaaliyeed ku soo qaatay inay dadka Soomaaliyeed u gurmanayaan sax waxa jirta marka samafalayaasha Soomaaliya ka soo hadir baxay aniga Cabdimaalik Coldoon ubax Cabdiraxmaan ilaahay beerka waayeen caalan qaran waxa soo dhan horta ana ugu horeeyay shakhsi ugu horeeyay oo Facebook soo gala oo wax ururiyo oo ummadda ila war hal iscaawiyo oo miskiin sawir ka duuba mobile hatta dacaayad baa laga sameeyay oo magarasa waxa la kartoonno iyo amiin arts anoo masaakiin siinaya magarasa lacag oo camera saa ugu sawiray ayaami hore ummadda waa la yaabtay laakiin markii dambe waxa la ogaaday fikirkan aan keenay fikir saliim ah yahay de boqolaal kun oo qof baa ku badbaaday oo loogu qabtay maasha Allah waan kula socday aniga laftayda dhalinyaradii waxbaan ma sheeganahayo macnaha sadaqadan baxsaday sheegi mahayo ما مغليسا هلو ما مغلو
walaalayaal أحمد walaal telefonka iga daa shiikhiina waad gooysay hawadaad ka saartay oo niyow facebookan waxaan uga guurnaa telefoonyadan messengerkan miyaanba gebigiisaba uga guurnaa shiikhi wakaa hawadaad ka bixisay walaalayaal shiikheena allaha xifdiyo allaha barakeeyo waxa waaye shiikhayagii buu ahaa shiikha ku jiray shiikh makaawi buu ahaa arrintii waa asagii noo sheegay waan ka dharagsannahay cadaaladda waxa weeye meeshay maraysay iyo arrintii shiikha uu nooga sheekeeyey ilaahay subxaana watacaala shiikha ayaga hanoo xifdiyo waa u ducaynaynaa arrintaasna waan ka kacaynaa meel kastoo aan joognay dal iyo dibadba walaalayaal waan ka istaagaynaa qaadanna mayno annaka dhallinyaro especially haddaan dhallinyarada nahay oo dhallinyarada soomaaliyeed aan nahay walaalayaal waxa weeye maaragtay arrintaa waan ka istaagaynaa waan ka kacaynaa meel kastoo aan joognana waxa waaye waan ka dhiidhinaynaa yeelina mayno waxa la qaadan karo oo binu aadanku qaadan karaan ma aha marka waxa weeye maaragtay waxaan iskugu baaqaynaa walaalayaal sheergareeya meel kastoo aad joogtiin waxa waaye maaragtay waa inaad ka istaagtiin ka kacdiin aniga kulleyba asa axmed boos ahaan waan wacahayaa xildhibaankayga hadduu ilaahay idmo haddeertaan markaan ka baxaan wacahayaa kulleyba xildhibaan soomaaliyeed weeye aniga xildhibaan iima aha laakiinse waxa waaye maaragtay waa in aan meel kastoo aan joogno waxa weeye qof kasta qof baa yaqaano soomaaliyey waa iswada naqaanaa qof kasta xigaalo iyo ehel iyo abti baan saa u wadanaa sheekh makaawi aniga waxaan markuu yidhi soomaali weyn buu yidhi waxa weeye adeer iyo abti iyo eedo iyo ehel bay isku wada yihiin buu yidhi annakiina wuxuu yidhi adeer iyo ehel iyo midna waxa weeye lama ihin buu yidhi bal u fiirsada annakii baa gacmahaygii isku cadaabnay walaalayaal oo dadkii noogu sharafta badnaa oo laga yaabo inay naga wada maaragtay diin badan yihiin naga karaamo badan yihiin naga sharaf badan yihiin walaalayaal wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaashay daris uroon wax yar ii sug dadkii walaalayaal saas ahaa oo sharaftaa lahaa waxa weeye maaragtay oo annakii aan waxa weeye maaragtay aan faquuqnay oo heerkaa gaarsiinay oo dadnuma xumo annaka macnaha waxa weeye maaragtay iyo jaahilnimo ay noo geysay jahliga waa dhibaato waaye jaahilnimada ilaahay subxaana watacaala ha naga saaro waxaan isku xaganayno waxaan isku dilayno waxaan isku cadaabayno gacmahayga aan isku baabi'inayno walaalayaal waa jaahilnimo waa waxyaalaha noocaasa waaye marka fadlan waxaan idinka codsanahayaa qof kasta qofka inuu waco qof kasta qofka ehelkiisa inuu waco qof kasta qofka ku xiga inuu waco hadduu xildhibaan yaqaano haddii maaragtay uu yaqaano maaragtay xeer ilaaliye hadduu yaqaano anigu kuleyba waxa weeye xeer ilaaliyaha insha allah waan wacahayaa I have access for him waxa weeye maaragtay qof kasta qof uu yaqaanaa inuu waco oo yidhaahda arrintaan maaragtay wax laga qabta ha laga kaco darisuraan walaal aad baan kuu salaamahayaa 2 daqiiqaan ku siinahayaa adoo walaashay ah hallo darisuraan mid lamida haa walaalkay axmed waan ku salaamayaa mid lamida anigana waan salaamayaa dhammaan inta ku jirta asxaabta dadka u damqaday sheekha si khaasan waxaan salaamayaa sheekh makaa'il waxaan leeyahay allah ku xifdiyo insha allah ma arki doontiin wax walbana ilaah subxaanahu watacaala ayaa qadaray in laydin xiro ama laydin awood sheegtana ilaah subxaanahu watacaala ayaa qadaray waxaan rabbi qadarinna ma dhacayaan insha allah gardaro cad oo laydinku haystana waxba dhiba idinma geysan doonto ninka hadda ku jira xildhibaanka maanta isla fiican oo awood sheeganayo waxa ka awood weyn ilaah subxaanahu watacaala haddii aan sida saxda loo hadlin oo alla kacabsi wax lagu qabanin Soomaali waligeed intaas iyo kasii hoosay taagnaa doontaa mana u maleynayay haddii ay dadkaas dhintaan dhammaantood Soomaali nabad dambe inay kasii taagnaa doonto ama muxuu ahaa lagu ceeshi doono farxad iyo caafimaad marka hore midda labaad waxaa la dilay aabahood ninka hadda la dilay kama macaan badno kulli naf walbaba way macaan badan tahay kullu nafsu daa'iqatul mawt qof walbana way dhiman doontaa haddii ay dhintaan
kiiba wakiil wixii ahaayeen geer u joog qof walbaba annaga dhanna waxaan sugaynaa waqtigeena gobonimadana in lagu dhinto waaye mid kaleetood asaga wuu ku qanacsan yahay waa qof diin leh waa qof ilaahay ka baqaayo oo yaqaano wax walbaba inay qadar allah ku dhacdo mid kaleetood wuxuu ahaay qof samafale ah ilaahay subxaana watacaalana qofka ajarkiisa ma daayacayo qofka insaanka rabbi asaga muxuu ahay xifdinayo ilaah subxaana watacaala horta waxaan uga baryaynaa intii aan dad codsi aan u diri lahayn inaan ilaah subxaana watacaala aan baaq u dirno qof walba oo muslin ah oo walaalkay ah oo rag iyo dumar oo muxuu ahay awoodaan inay dukadaan xataa waxaan ka baryi lahay laba ragaco ilaah subxaana watacaala inay ku baryaan in dulmigaas lagu dulhaayo uu ilaah ka dulqaado dumarka tii salaada ay ku waajib tahay waxaan ka codsanayaa gabar walba walaashay ah tii dukan karto oo salaada faralka ilaahay uu ku koryeelay in ay dukato tii aan dukan karin oo muxuu ahay waajibaadka ilaahay oo dul saaran yahayna waxaan leeyahay si qalbi ah oo niyad saafi ah aan ugu duceyno biidnillaah wiilasha soomaaliyeedna waxaan dhihi lahay baaqa qofka ugu horeeya loo diro ilaahay subxaana watacaala waaye ilaahayna wuxuuna amray in aan salaad aan ku degdegno aana sabarno intaas inaan badino marka ugu horeyso sheekha waxaan leeyahay talada ugu horeysa baaqa ugu horeeya waxaan u diraynaa waa ilaahay subxaana watacaala meesha dowlad ma joogto runta haddii laga hadlayo haddii arrintan ay fargelin weyso ay ka hadli weyso dowlad soomaaliya ma joogto axmed boos walaala waa runta allaha ku barakeeyo maanta shiikhaa soo galay dadkii oo dhan baa waxa weeye soo qaba qof kasta waxa weeye sidaas walaala aad baan ku waa mahadsan tahay walaalkay waa mahadsan tahay fursaddan waan sii siinaya asxaabta dhammaantoodna waan salaamaya shiikhana waxaan leeyahay hamurgin hana murugoonin insha allah rabbi subxaana watacaala isagaa masaakiintiisa la jiro qof walbana waxaan leeyahay inaan baa qof kale u dirno waxaa ka sukaysa inaa ilaah subxaana watacaala aan gacnaha u taagno waana mahadsantihiin aadna waan ku salaamaya walaalkay haya walaala macaanta thank you waa mahadsantahay walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa maqlayseen shiikhaygii sharafta badnaa soomaaliyey maalin kasta kan ugu sharafta badan haddii nalaga dilo maalin kasta kan ugu sharafta badan waxa weeye maaragtay indheheennii ahaa assassination haddii loo soo shirqoolo maxaa naga harahaya walaalayaal maxaa naga harahaya walaalayaal waxa weeye wax naga harahaya lama arko shiikha iyo waxa weeye maaragtay markii la arkay wuxuu qabanahayo wanaaguu qabanahayo horumarkuu qabanahayo markii la arkay baa walaalayaal waxa weeye maaragtay ay u adkaysan waayeen adduunka wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay waa aad baan kuu salaamaya soo dhowow saaxiibkii axmed oo ku salaamaya in badan waan ku salaamahayaa 2 daqiiqaan haysanaa maxaad leedahay shiikha waa maqlaysee niyo waxaan ku leeyahay shiiqa waxa kaliya oo wax loogu qaban karo waxa waaye dawladda dhankeeda in laga soo galo nin walbana xildhibaanka uu asaga matala waco xildhibaankan laga eed sheeganayana in la wac ma gartay aad iyo aad magaciisa xildhibaanka magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdirashiid maxamuud xasan baa la yidhaah dadka facebook soo gala ninkaas ha ugu daataan pagekiisa facebook uu leeyahay qasab ma gartay may waa u daadanaynaa waa ilkahan weliba la gelaynaa anaga sheekh makaawi ku qabiil ma nihin laakiin soomaalinimada naga dhaxaysa ma garatay waa shiikha eegi soomaalinimada inaan isugu hiilino waay ninkaas odayga ah awooda u leenahay inaan ka qaadno xasaanada oo baarlamaanka dhan aan ku kicino oo xataa odayga muxuu ahaa jawaari aan ugu dhacno muxuu ahaa meeshiisa oo la dhaho ninkaas odayga ah ha laga qaada xasaanada ma garatay may waa inaa horta sida ugu dhaqsiyaha badan horta ninkaa in baaritaan lagu sameeyo waaye walaale waxa weeye cadowgu wuu fara badan yahay maanta kuwaan aan idhaahna mooshinka oo dowladdaydii ka socon weyday oo dowlad kasta timaada ka socon weyday oo malaayiinta daalar jiidanahaya oo masna waxa weeye maaragtay waxaa ku samaynahaya dowladdii dadkii ehelkii war eeg qabyaaladii waxay gashay faamiligii hoosay gashay say u socotay bal bahashaas xumaanteeda iyo sharaf darradeeda eeg taabkay ka soo bilaabatay ilaa dhuuxii ilaa lugihii ilaa jufadii ilaa wiil iyo hooyadii wiil iyo laba walaalaayo uur ka soo wada baxday isku dhifatay aad iyo aad marka waxaan saaxiibo kugu boorinaa waxaa waaye waad aragtaa umaleynaa saa uga qabanay dadkii facebook mucaaradka ahaa oo aan shutdown uga dhigna ma garatay sax so facebook waa very powerful waa awood la adeegsan karo ninkan odayga ah oo muxuu ahaa xildhibaanka facebook soo galo waxa uu qaba ha noo sheego sida ninkan uu noogu sheegtay maanta oo dhahay Soomaaliya ii hiiliya hasna ha sheegtay hadduu run sheegaa ma garatay ma nin 5 qof oo isku family hal ii toogtay yiri baa waxa weeye halka intuu soo fariisto muxuu ku soo fariisanayaa
ما شن قف كسو فريسنا هي هذا نكان أن سومالي أصاب بدقي نكان نكو يهنوالي قناة الشيخ مكاوي أو فيسبوك عن كبرناي هذه مركب ودمعة إنه دي سي أو ضدبن أو كلايو يستجنا دي إني مركب حنا خنا سومالي ضدنا أي سوق تكت سوما ولا لا وادي يد بن كاجم هذه علينا هي كانس بان بالكي أن وصحوة يساس بان وسلامة هي sidoo kale saxa ninka marka loogu dhaca beejkiisa bas beejkiisa ugu dhacayna sax walaalayaal soo dhawaada sheer gareeya aad iyo aad baa sheekhu ugu mahadsanaa ilaahay ha barakeeyo allah ha sharfo waxa waaye assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal soo dhawow maxaa nagala qayb galaysaa sheekha ma la socotay markii uu ku jiray line-ka uu ku jiray ما walaal hadda u baan telefoonka daaray wax daqiiqado ka hor baan soo galay in la ila yar qabatiyaan jeclaan lahaa ها walaal sheekh makaawi baa nala hadlayay oo ku jiray line-ka arrintiisa waa la socotaa sheekha samafalaha ah oo waxa weeye maaragtay dal iyo dibadba maanta laga kacay waxaan codsanaynaa qof kasta qof buu yaqaanaa soomaalidii waa iska waxa weeye maaragtay waa wada ehel adeer iyo abti iyo eedda isku wada yihiin qof kasta xildhibaan buu yaqaanaa access buu leeyahay waxaan codsanaynaa intii la kaco qof kasta inuu qofka kala la hadlo oo waxa weeye maaragtay mas'uul dawladeed ah walaal sheekha waan la socday kulli live-kiisa shalay iyo yaan la socday xaaladda uu ka warramayay dad badan ma kolley sheegayay sida wax u jirana kolley xaaladda hore ee dadka la laayay la hadalhayaan u aadmaan ula sii soconin laakiin ninka maanta hadee hal qof oo dhintay Allah u naxariisto kolley inay dadka ka qayb qaata dhammaan shariicada islaamku way ogashaa in loo dilo laakiin sida aan sheekha ka dhageystay si aan macquul bahayn qof aan wax u warhaynin inay saa la yiraahdo qofka maxkamaddu maxay tahay maxkamad diin islaami iyo diin gaalaad midu na ku shaqayn ma ahan ma qaraaba loo dili waa sidii Soomaalidu iskaga arsanaysay saas ay wax u wadaan walaal waa saas weeye waxa weeye money talks waaye lacagta waxa weeye maaragtay ninkan nin la yiraahdo Cabdirashiid maxamuud xasan oo xildhibaan aba waxa weeye arrintan fangaraynaya oo raggan mooshinka imaaraadka ah imagine nin xildhibaanadan boqolka kun labada boqolka oo kun la siinayo waxa weeye maaragtay arrintan waa arrin hoose oo hirin ah waaye marka waxaan codsanaynaa walaal arrintaas waxa weeye sheekha iyo shan familigiisa abay toogasho ku xukumeen sheekhi wuu baxsaday wiilashii meel uu familigii oo dhan way kala firdhadeen hooyadiis oo da'a xataa gurigii baa loogu soo dhacay marka arrintaas walaal waxaan kaa codsanaynaa haddii aad taqaanid access aad u leedahay qof mas'uul dawladeed ah iyo qof caaqil ah iyo qof ugaas ah wax access ah haddaad leedahay inaad maaragtay arrintaas aad gaarsiisid sheekhana waa maqlaysid waana jeegarayn kartaa waxa weeye maaragtay facebookiisa meel kasta waa ka jeegarayn kartaa haddana si live ah buu meeshaan ugu sheegahayay marka aad iyo aad baan kuu salaamaya waad mahadsan tahay walaalle horta awalan sheekha waxaan ugu baaqaynaa inuu samir uu cuskado in allaha maca saabiriin baa la yidhi marka labaad annagoo Soomaali ah oo dadka Soomaaliyeed ah wixii awoodannada waan garab taagannahay waan ka danqanaynaa suuragalna ma ahan wax dhicina ma ahan afkooday ka dhaheen maxaan ku dhahaa sidii kale wax lagu xallin karaa lagu xalliyo annaguna Soomaali annagoo ah tabartanada iyo oraahdannada iyo wixii aan awoodna wanaag taagannahay meeshii maxaan ku dhahay lagu tabaalaynhayo iyo meeshii lagu difaacayo intaba nimankaasna waxaan leenahay ilaahay ha ka cabsadaan fidnada iyayna sii kordhinin ilaahay ha ka baqaan way dhaarteen kitaab bay ku dhaarteen waxa ay soo bandhigeen hadda wax qarsoon annagu war uma hayno wax sharciga islaamka iyo gaalada midna sal kula ma ahan dulmiga hadda ay ku dhawaaqeen berrida iyaga loogu dhawaaqi doonaa haddii ay si degdeg uga laaban waayaan annagoo Soomaali ah Soomaalida niman ku hadlayna annagu awood dawladeed iyo tu qabiil iyo tu urur iyo tu saaxiibnimo midna kuma hadlayno aad iyo aad walaal waa ku mahad celinayaa waa la badan yahay walaal waa mahadsan tahay bal aan soo qabto walaalahan kale waqtiina iska gabangabeeyana waa rabaa assalaamu calaykum walaalkay aad buu mahadsan yahay soo dhawaada walaalayaal sheer gareeya adinkoo raalli ah yaan kale soo qabtaa walaalkay xidig wuxuu leeyahay maaragtay waa jaanisaan ku siiyey kusoo bood 2 daqiiqo sheekhiina waa maqlayseen walaalayaal
sheer gareeya meel kasta ha gaadho qof kasta maaragtay qofka ha waco qofka kale u dhow waa arrintaas aan aad iyo aad uga maaragtay aan uga dhiidhino soo dhawow walaalkay waan ku salaamahayaa عليك السلام walaale soo dhawow maxaa shiikha waa maqlaysay haddaa ku jirtay oo nala socotay shiikha اللهم لا مقلايا ها walaale waa lagu maqlahayaa aad baa lagu maqlahayaa ها مرة وجهي إنه ماشي صادق هرت واني وذ سلامة يا أنت ماشي كجرته صغير يا كبير با waxaan ahay aniga qof labada wiilba u dhaxaysa run ahaantii markaan ii waramo oo qof anigu waxaan ahay familkooda ah haye ma sha Allah ya waa qoftii u horeysay oo Facebook ka soo hadasho oo familkoodana ahay aniga ma fahantay soo dhawow maxaa nala wadaagaysaa waxaan nila wadaagayaa horta awalan in aniga beesha aan ka dhashay faataxa ay igu martaan ilaahay bogooda burcad isku marayo haye faataxada mara walaalayaal 320 baa ku jirta gabadhaas walaashay faataxada awalan because walaalo anigu calooshayda ma fiicno anigoo beeshaydii isku jawayso sax adduunyada aakhiro oo foolxuma ii tahay waa run annaga waxaan nahay beel yar dagaal ma galno annagii maanta haddaa is ugaarsanana foolxumee noo tahay marka waxaan leeyahay nin walbaba qaladku uu leeyahay allaha fahansiiyo aamiin qaladku uu leeyahay nin walba allaha fahansiiyo cabdikariin maxamuud xasan markuu dhintana annaga raali kama ahayn maantana 5 nin aan iga baxaysa hadii la yiraahdo annaga raali kama nihin haye waa garabkaygii oo gaay labada jeerba soo ma aha sax xaal mastuur baa jira xaal mastuur allaha ku dhameeyo waxaan leeyahay faataxada meel kasta adduunka ka joogtiin Soomaali weyn in loo maro labadaas jifo ilaahay bogooda burcad iskugu mariyo wax iska xiga maanta ma laha aniga jilib saddexaad baa ka ahay xitaa labadooda haye marka aniga aad iyo aad ayaan uga xumahay shamsudiin makaamina wuu maqlayaa wiilkii dhintana waa ka xumahay ayaga dulanka hadda loo geysanayana waa ka xumahay intaas ayaan ku darsanayaa ani walaale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Soomaali weyn waa idin jeceshahay waa idin jecelnahay walaalihiin baan nahay waxa weeye maaragtay sheekhu waa sheekhaygii adiga familigaagu waa familigaygii waxa weeye maaragtay ul iyo diirkeed baan nahay jaahilnimadii way dhamaatay walaashay jaahilnimadii way dhamaatay aniga maanta wallaahi iyo billaahi waxaan kuugu dhaaranahayaa gabadhayda iyo wiilkayga inaysan aqoon Soomaali cid ay ka yihiin maasha Allah billaahi inaysan aqoon Soomaali cid ay ka yihiin wiil caruurta baalkii ilmahayga ma qaro Soomaali weyn Soomaali baa tihiin calankaas baad leedihiin baan dhahaa qolkan yarka waxa weeye oo alaabtii igu jirto xafiiskayga ah baa waxa weeye maaragtay ay qof kasta intuu subaxdii yimaado intuusan iskuulka aadin waa inuu calanka maaragtay uu shumiyo calanka waa inuu saa yiraahdo Soomaali baa tihiin baan iri Soomaali weyn baa tihiin baan iri ilmahayga u sheega jaahilnimadii way dhamaatay walaal jaahilnimadii way dhamaatay jahliga qofka binu aadanka jaahilnimada waxa weeye maaragtay gaalna way ka dhigtaa taa ku bishaaraysta horta taa in laga gudbay waa 20 waxa weeye 17 century baa la marahayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay familigaaga iyo qaraabadaada inuu barakeeyo arrintaas amiin ya rabbi walaal haddaan aniga aan dhinac u bato dhinaca kale inuu iga xumaadaan ka baqanaya waxaa noqday ushii labada dhinacba qofkii labada dhinac ka gubtay ma aragtay aan noqday because labada wiil waa labadaydi garbood ani baan ma ku sheegayo labadooda waa ilma adeerada ima kala xigaan habeenna ima soo kala xigaan laakiin marka aan leeyahay faataxada ha loo maro Soomaalida meesha iskugu timaado ducadooda way kacdaa muhiimadda maanta ani meeshaan u soo galay weligay Facebook iyo live midna ma soo galin haddaan soo galayna for fun baan u soo gali jiray ma aanay wax siyaasad iyo waxaan sidaan oo kale taa kama hadli jirin ilaahay xaqa ha tusiyo Cabdirashiid adigana waxa ku leeyahay in adeer waa arkaysaa waxa meesha ka dhacay kale waana fiirsanaysaa waana maqlaysaa inaad ka tanaasushid arrintaana jeclaan lahaa anagoo anaasa afar xabaana isku tanaasulno runta ku sheegaya aad iyo aad waa run walaasha Cabdirashiid walaasha waa maqlaysaa annakana waan ku leenahay waxa weeye xildhibaan Soomaaliyeed baa tahay walaalow Cabdirashiid ninka waxaan la hadlaynaa Cabdirashiid maxamuud xasan la yiraahdo xildhibaan Soomaaliyeed baa tahay xildhibaanka beesha yibraha waay waliba xildhibaanka beesha yibraha anagu xildhibaan noo yahay wiil walaala waa run ma fahantay walaala waxa weeye horta xildhibaanadan meesha jooga kayga iyo kaagaba xildhibaan Soomaaliyeed waay waa sax marka xildhibaanka waxaan dhihi lahaa nabadda ka tali intaad adduunka ku nooshahay
آدية حمية سكارة عنا ديلا أنت أصلا كدر سنة يعني هيا ولا الله واكو سلامة هيا قبلنا سوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لا ولا ليال وايد سلامة هيا وهداي مقليسين أمة سوق بنا هيا ولا شيء أمة وحوي ماركتي أنا ناس جبيان رباه شيخة وأن قبلنا ولا شيء أنا أو شيخة فاميلي جيسة أو حجالة ده ومقليسين وحيد انترفات حدا يسومر بيتري لبضي قرب وايه labadaydii garab waaye waxa maaragtay ay isku maaragtay dhibaatadu ka taagan tahay oo waxa weeye maaragtay marka gabadha faatixada u mara ilaahay subxaanahu wa ta'aalahana waxa weeye maaragtay ha wada xifdiyo ilaahay maaragtay isku maaragtay xaqa ha tuso ilaahay subxaanahu wa ta'aalaha walaalayaal qabyaalad wataas say u socotay baa waxay ay gashay maantay waxay gashay maaragtay labadii walaalaha labadii ilma adeerada ahaa inay maaragtay iska hor keento oo ayakii ay isbaabi'iyaan oo ayakii ay xasuuqaan oo ayakii waxa weeye maaragtay cadaalad darro iyo midba maaragtay waxba waxa kale ay ka adag yihiin ay iskula dhaqmaan marka waxa weeye maaragtay arrintaas aan ilaahay subxaanahu wa ta'aalaha waxa waaye maaragtay faamiliyaashaas ilaahay maaragtay bogooda burcadaha isku mariyo walaalkay baan soo qaadanayaa ibraahim adaa nasiib u yeeshay yaasiin ibraahim marka walaalayaal waxaan ugu baaqaynaa xildhibaankaas waxa weeye inuu maaragtay arrintaas uu maaragtay ka tanasulo waa xildhibaan Soomaaliyeed waa xildhibaan waxa weeye maaragtay hadduu yahay xildhibaan maanta maaragtay dadkiisa iyo cadaaladiisa iyo dadkiisa wax la qabanay waxaan ka codsanaynaa in maaragtay uu arrintaas maaragtay uu ka tanasulo uu ka noqdo aysan taytalkiisa gelin magaciisa inaysan gelin baan rabnaa walaalayaal marka walaal jaanisaan ku siiyay uu dhacayaa walaalayaal sheer gareeya xoogaa waqtina inaan iska gebangabeeyaan rabaa allaha barakeeyo intii nagala qayb gashay shiikha waxa weeye maaragtay insha allah asamidnimo qaran waan soo dhoweyn doonaa hadduu ilaahay idmo waan soo dhoweynaynaa shahaado sharaf baan siinaynaa waxa weeye waa shiikhaas shiikhaani waxa waaye maaragtay samafalka haa waaye isaga iyo coldoon iyo rag la mid ah waxa weeye maaragtay waa rag aad iyo aad u qiimo badan waaye ragaan quuri karna ma aha soomaaliyay ogaada arrintan arrin san waaye hal doorkayagaa la rabaa in la cuno kaayaga waxgaradkaabaa la rabaa in la cuno annakiibaa waxaa la rabaa maaragtay in maaragtay maaragtay qof kasta maaragtay nalaga qaadaa nalaga waxa weeye maaragtay dilaa la rabaa allaha xafido qofkii ilaahay dilaa dhinta marka walaalayaal waxa waaye maaragtay arrintaas aan aad iyo aad ula soconno aan waxa weeye maaragtay meel kastoo aan joogno qof kasta qof buu yaqaanaa qof kasta waa inuu qofkaas uu yaqaano waxa waaye maaragtay uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu maaragtay arrintaas ula hadlo shiikha wuu maqan yahay asaga iyo faamiligiisa islama joogaan waxa weeye maaragtay way kala irdhoobeen marka waa u dhacayaa walaal soo dhawow taleefankaygana wuu taagan yahay marka walaalayaal aad iyo aad baan idiin salaamahayaa meel kastoo aad joogtiin inaan iska gebangabeeyaan rabaa walaalkay aad ii soo codsanahayay baan rabaa inaan mar jaanis labaad siiyo la shaqeeya ninkaa facebookiisa aan u dhacno ninkaa facebookiisa meel kasta waxa weeye maaragtay aan ka raadino waxa weeye maaragtay aan ku kicino waxa weeye maaragtay meel kastoo aan joognana waxa weeye aan ka qayb qaadano allaha barakeeyaan leenahay qof kastoo nagala qayb galay inta waa ku mahadsantihiin assalaamu calaykum calaykum assalaam soo dhawow walaalle maxaad leedahay shiikhayga markii dhoweed waa maqlaysay baan u malaynayaa maasha allah walaahi maanta waan ka naxay maaragtay maxay aday shiikha asxaab badan ayuu samaynayay ma garatay wallaahi markuu maxay aday uu soo galay maanta ana caloosha ay hurtay waayo intuu muslin uu qabtay ayaaba la soo koobi karin ma garatay marka haddee ninkaana ha lala hadlo tolku maxay aday waa la isdhex galaa ma garatay
oo maxay ahaday hadduu diye rabana dee soomaali weyn baa siinaysa ma garata maxay ahaday 5 wiil oo walaala ah ina hal qof loo dilana xaaraam waaye ma garata صح maxay ahaday laakiin السلام عليكم أحمد. هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد walaalkay aad baan kuu salaamahayaa soo dhawow. أحمد horta waan kaa qaaday saaxib aad baan kuu salaamayaa inta qolka ku jirta dhammaantood Soomaali maxamed oo dhan dhammaantood aad baan u salaamayaa ma garatay haya iyo Axmed horta arrin fiican baad ka shaqaynaysaa horta niyo Ilaahay kula garab galo waana dhageystay sheeqa aad baan u dhageystay maantana duqbilo waan arkay aad ooga hadlay marka anigu sheeqaas waxaan leeyahay cid ka xaq daran waxaan leeyahay Ilaahay ka qabto amiin ka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin qofka bini'aadanka cid qalad ku dulmaysan dadartii inaad ka hadashin way fiican tahay marka arrintaas walaalkay macaanaad ka shaqaynayso arrin aad u fiican sheeqna waa nagu soo xirtay si wacan baan uga dharagnay nin walbana hadii waxaan garanayaa jilfo buu ka dhashay hadii waxa weeyaan hadii ama abti ama walaal ama qabiil buu ka dhashay waxaan leeyahay nin walbo ama abtiyaashiis hadday dowladda wax ka yahaan ama walaaladiis dowladda wax ka yahaan inay ninkaas nin walbo la wacigeliyo oo maaragtay arrintaa wax laga qabto meeshaas in wax laga qabto aad iyo aad ugaas arrintan walaal ugaas arrintan waa arrin noo wada taala mas inaan seexana ma aha chief nooma yaalo waa cadaalad darratii ugu weynayd waaye mother of cadaalad darra waaye meel kasta inaan ka kacno waaye arrintan may are caawa ka bilaabtay xamadow aan ka bilaabo ma fahanti waa isku ognay waa sax wey sax marka are caawa ka bilaabtay xamadow aan ka bilaabo haddaan ku bilaabo waaga haddii uu beriyo ma fahanti gal aan uga marka nimeyo arrintaa laga shaqeeyo ninka masaakiinka midda kalena waxaa leeyahay dadka masaakiinta oo xawaaladaha lacagaha loogu soo diray oo dadka masaakiintu caawinay arinta xawaaladaha cunaqabatiinka la saaray sheeqaas arintaasna ha laga kaco xawaaladaha naagna straaga loo qaado lacaga baan ka dirnaa haweeney maalin lacaga naga qatan oo aan sheeqa ayaa la dulmin arintaas idna laga shaqeeyo marka sheeqa masaakiinka banaanka laga maray ayaan leeyahay markaan aad baan u soo dhaweeyay sheeqaynana waxaan leenahay nabad ku noolaaw wallahi bilaad talawaan qosl markuu maanta dhaani walaal ma qey Facebook walaal iyo waa runtiis walaal waa runtiis annakii jaahilnimo annakii baa isfaquuqnay annakii baa waxa weeye maaragtay gacmahayagii god iskugu ridnay annakii baa halkaa isgaarsiinay waa runtiis inuu yidhaahdo macnaha war walaalahayga damiirka lahow walaala waa run waaye cadaalad darro waaye marka aad iyo aad baan kuu salaamay axmed madoobe ka bilow qof kasta qofka anigana insha Allah haddii ilaahay wallahi bilaa tala caawa wallahi axmed madoobena waan ka bilaabay abtiyaashay mujartaangna caawa waan ka bilaabay cabdiweli aan ka bilaabay cabdiweli caawan ka bilaabay asaga waxay ma fahanti aad iyo aad qof kasta marka arrinta waa ka shaqeynaa arrinta tilaabo weyn baa laga qaaday ninkan xildhibaanka shaqada waa laga joojinaa uma qalmabo inuu shacab ku soo laabo uma qalmo cunaqabatiina la saaran fahanti walaala waa runtaa ninkaas xildhibaankaas cabdirashiid maxamuud xasan baa la yidhaahdaa xeer ilaaliyaha iyo waxaan ka codsanaynaa waxa weeye maaragtay ninkaas in xisaabtan dhab ah lala sameeyo xasaanadiisana waxa weeye maaragtay laga qaado inta baaritaanku ka socdo lacagahan oo faraha badan haddii loo adeegsanayo dadkii masaakiinta ahaa iyo waxa weeye maaragtay in lagu iyo qarankayagiiba haddii loo adeegsanayo dhibaatay leeyihiin
waa la badan yahay aad baan kugu salaamahayaa aniga walaal waan kaa qaaday hadda koolashaan gelin afrika haddaan gelin gaalkaceena waan gelinayaa puntland jubbaland waan gelina ma fahantay kheyr fara badan waan ku rajaynaya ummadda soomaaliyeed meel walbaa joogtiin odayga alala shaqeeyo odayga alala shaqeeyo masaakiinka alala shaqeeyo dabcadeeruta kalbuu kasoo hadli doonaaye kheyr fara badan baan nii rajaynaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam raxmatullah aad baan idiin salaamahayaa walaalayaal waxa weeye walaalkay aad baan uga helay markuu yidhi maaragtay qof kasta aniga axmed madow baan ka bilaabayaa buu yidhi axmed madow baan exiskiisa hayaa waxaan idinka codsanahayaa qof kasta qof buu yaqaanaa soomaaliyey ehel iyo abti iyo waxaan wadanahay dad isku wada xiran qof kasta qof buu yaqaanaa xildhibaan buu yaqaanaa mas-uul dowladeed buu yaqaanaa walaalayaal telefoonyada aan qaadano aan wacna mas-uuliyiintii qof kasta waxa weeye qofka kale ha waco xildhibaankan muxuu samaynahayaa hala yidhaahdo arrintan hala gala hala yidhaahdo shiikhan waxa weeye shiikhaygii samafalka ahaa arrimihiisa iyo situationkiisa meeshuu ku sugan yahayna waxa weeye maaragtay waa ka wada dharagsannahay allaha barakeeyaan leenahay walaalayaal arrimahaas u guntada midda kalena waxaan ka codsanaynaa xawilaadaha waxaan ka codsanaynaa sida immediate loogu dhaqsiyaha badan shiikhaas iyo wixii aan usoo dirnay iyo akauntiyadiisa iyo waxa weeye samafalkiisa in loo fasaxo waaye cadaalad darrada soomaaliyey cadaalad darrada aan ka midowno cadaalad darrada aan iska celinno walaalayaal cadaalad darro waxa weeye wax ay noo hagaajinaysa male calankaa quruxda badan oo maalin kasta garabka noo saaran oo waxa weeye maaragtay oo quruxda badan oo aan jecelnahay kaas hadduuna deeqi waaye wax kaloona deeqahaya male kaas aan cadaalad u raadsanno waa isla ognahay calanka markaan soo bixiyo waxaan rabaa wadnaha guduudan in loo soo qoro waa aniga mar kasta dhahaa calanka wadnaha soo siiya wadnaha calanka waxa weeye qof kasta wadnaha usoo taabta calanka walaalayaal aad iyo aad baan idiin salaamahaya meel kastoo aad joogtiin sheer gareeya dhammaantiin ilaahay ha idin xifdiyo ballanteenu waxa weeye shiikha iyo shiikhayaga allaha barakeeya waxa weeye maaragtay inaan u guntano oo waxa weeye maaragtay aan guntiga maaragtay aan dhiisho ka dhigano waayo qof kasta mas-uul ha waco qof kasta mas-uulkiisa ha waco xildhibaankiisa ha waco waxa weeye maaragtay aniga xeer ilaaliyahan ka bilaabahayaa qof kasta qof baa ku aadan qof kasta qof ha waco arrintan waxa weeye maaragtay aan maaragtay meeshii ay tahay waxa weeye aan uga soo harno aad iyo aad baan idiin salaamahaya walaalayaal meel kastoo aad joogtiin allaha idin barakeeyo